السلام عليكم ardayda kusoo dhawaada qaybtii labaad ee tenseska casharkan waxaan ku bixinaynaa ama aan ku baranaynaa past tense hadaba maxay tahay waa waqti la soo dhaafay casharkan kii ka horreeyay waxaan sharxay tenses waxaan ku micneeyay af Soomaali ahaan waa waqtiyada ay ficilka dhacayaan wuxuu noqon karaa waqtiga hadda waqti la soo dhaafay waqti hadda kadib imaanayo waqti oo ficilka uu socdo weli dhamaanin intaas waxaa la yiraahdaa waqtiyada kala duwan waa tenska waqtiyada kala duwan oo ficilka qabsoomayo ama la sameynayo ayaa la dhahaa tense hadaba waxaan soo barnay casharkii kan ka horreeyay present tense oo afar qaybood aan ka dhignay afartaas qaybood haddaa ila fahamtay oo waxda su'aalaada qabin oo iisheeg si fiican u fahamtay hadaba qaybta labaad oo past tense ayaa baranaynaa casharkan sidoo kale past tense wuxuu u qaybsamaa afartan halkan ku aragtid waa simple past tense past continuous tense past perfect tense past perfect continuous tense afartaas u qaybsamaa hadaba si kooban iyo si guud ah u sharaxo waxyaabaha ay kala yihiin simple past maxaa weeye ficilkana siduu yahay hadaba waqtigan simple past tense haddaa maqashid waxaa waaye the action completed or finished ficilka wuu dhacay wuu qabsoomay wuu dhammaystirmay waa laga soo gudbay waa laga soo farxashay waa laga soo tegey wax saameyna waqtiga hadda kuma lahan ficilkaas noocu doono ha ahaado waa ficil dhacay waqti hore dhacay dhammaaday laga soo gudbay weeyaan waa simple past haddaa maqashid waa iska simple ficilkii wuu qabsoomay wuu dhacay wax saameyn oo haba yaraatee kuma lahan waqtiga hadda la joogo present timeka ah waa dhammaaday waa lagu kala baxay alright number 2 past continuous tense haddaa maqashid halkan the action in progress halkan micnaheedu waxay tahay ficilka ma dhammaystirmin ficilkii waa qabyo ficilkii asagoo socday baa waxaa la dhahaa waxaa laga soo galay interruption wax la yiraahdo waa laga soo dhexgalay ficil ana hadda anoo hadlayo baa liga soo dhexgalay that means waa ficilkii hadalka ma dhammaynin hadalkayga inta ugu talagalay ma hadlin sharaxaadii cashirkii waxaan bixinaya ma dhammaynin ficilkii hadalka ahaa uu qabyu noqday ma dhammaystirmin sidoo kale ficilkan past continuous wuxuu noqdaa tusaale ahaan oo kale waxaa loo isticmaali karaa markii ficil socday waqti cayiman oo khaas ah oo adiga aad garanaysid specific time ficil dhacaya markaa rabto inaad ka hadashid ama ii sheegtid tusaale ahaan oo kale waxaa leedahay at 7 p.m. she was reading at 7 p.m. she was reading aad leedahay daad micneheedu yahay 7 habeenimo way akhrinaysay hadaba akhriskii may dhammaystirtay ma garanayno